habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin su'aalo ayaa ka taagan sida qof uu ugu soo dhuuntay diyaarad Kenya Airways oo ka timid Nairobi oo meydkii qofkaasi ugu dambeyn uu ku soo dhacay London wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga haynaa London iyo Nairobi ba qodobada kale caawana waxa kamid ah dawladda Shiinaha ayaa ku boorisay mas'uuliyiinta Hong Kong in ay baaraan mas'uuliyadda dambiga kooxo mudaharaadayay oo waxyeeleeyay baarlamaanka Hong Kong. Kumaan kun oo qoys oo ka barakacay abaaro ayaa iminka ku nool xeryo ku yaala magaalada Hargeysa. Warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa. Waxa lagu barayaa tabletska waa tiknoolajiyada iyo qaabka ay u caawinayso carruurta iskuulka in ay wax bartaan casriga. kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa baaritaan ayaa ka socda magaalooyinka London iyo Nairobi kadib markii nin diyaarad ku soo dhuuntay uu ka soo dhacay diyaaradaasi oo ahayd kuwa rakaabka ciidamada booliska ee Britain ayaa waxa ay sheegayaan in uu ninku ka dhacay Kenya Airways diyaarada ay leedahay oo ku jirtay duulimaad Nairobi ilaa garoonka Heathrow ee London waxa loo malaynayaa in uu ku soo dhuuntay goobta taayirada diyaaraddu ay galaan waxaana arrintani ay keentay in su'aalo badan laga keeno amniga garoonkaasi waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo ka warrama diyaaradda Kenya Airways ayaa dul maraysay koonfurta magaalada London sida diyaaradan oo kale dabeetana waxaa dhacday in halkaasi nin la aaminsan yahay inuu diyaaradda ku soo dhuuntay isagoo ka soo raacay diyaaradda magaalada Nairobi waxaana loo malaynayaa 1,000 mitir inuu soo socday inuu beerta gurigan ku soo dhaco duulimaadka KQ100 oo ah ka qofku ka soo dhacay ayaa Nairobi ka soo kicitamay 7:19 daqiiqo maalintii Axaddii subaxnimadeedii waxaanu London soo gaadhay 8 saacadood kadib markii halka saacadu ahayd 3:42 daqiiqo ee galinkii dambe wax yar ka hor intaana diyaaraddu fadhiisan ayaa booliska laga soo wacay xaafadda Clapham inuu qof ku soo dhacay guriga halkaasi ku yaala in qof ku soo dhuunto halka diyaaraddu taayiradeedu ay ka xidhmaan ayaa waxa ay tahay wax aad u adag airportadana baryahan dambe aad baa loo adkeeyay ammaankooda tan iyo markii September 11 weeraradii ahaa ay dhaceen laakiin sida ku cad documentary ay BBC ka samaysay shilkan oo kale oo dhacay dhowr sanadood ka hor ayaa halkan wariye BBC ka tirsan wuxuu nagu tusayaa sida qofku ugu gaban karayo diyaaradda halka ay taayirka ku xidhato waxaana muuqata in aad halka taayirka sida u gashaa ay fududahay laakiin se taadagi waxa weeye ma ku badbaadi doonto the undercarriage bay is outside of the normal meesha oo si xamuulku ku jiro waxay ka baxsan tahay meelaha cadaadiska diyaaraddu aanu soo gaarin marka waa meel aad u qabow hawada oxygen-ta ay ku yar tahay hawo qabow ayaa ka socota sida lagu badbaadana way adag tahay waxaan oran karaa waa siiro inay ka badbaadaan marka ay diyaaraddu cirka isku shararto halkaas ay ku suuxayaan marka duruufaha oo dhan la eego waxa dhacaysa in qofka oo meed halkaasi uu ka soo dhici doono haybta qofkii halkan ku soo dhacay weli lama shaacin laakiinse waxaa la isweydiinayaa sidee buu qof diyaaraddaasi uga soo raaci karaa madaarka Nairobi waxoogaa biyo iyo cunto ah ayaa ku jiray baca laga helay diyaaradda xaggeeda hoose oo ahayd halku ninkaasi ku qarsoonaa waxaana cad in tallaabadani ku tahay xadgudub weyn amniga madaarka iyadoo ay caddayd in ninka halkaa ku soo dhuuntayna aanu ka badbaadi doonin duulimaadka dheer ee uu naftiisa u soo huray markana aynu eegno dhinaca Hong Kong halkaasi oo shaqaaluhu iminka ay nadiifinayaan wadooyinka kadib rabshado maalin socday oo ka dhacay Hong Kong muuqaaladana waa kuwii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa nadiifintaasi baarlamaanka Hong Kong kadib markii dibadbaxayaasha baarlamaanku ay galeen habeenkii halkaasi ciidamada booliska ayaa wada baaris ay halkaasi baarayaan dambiyadii ka dhacay waxaana la filayaa in baarlamaanku uu xirnaado muddada 2 toddobaad ee soo socota dawladda dhexe ee Shiinaha ayaa markiiba maanta banaanka iskeentay taageerada ay u hayso mas'uuliyiinta Hong Kong waatan madaxa Hong Kong Carrie Lam oo arrintaasi ka hadlaysay digniin muuqaalkan waxa ku jira iftiin badan qaanuunka Hong Kong wax ka muhiimsan ma jiraan waxaan rajaynayaa in inta badan bulshada ay nagu raacayaan in falalkan aan aragnay ee rabshadaha wato aan xaq u leenahay inaan dhaleecayno waxaan rajaynayaa in xaaladda caadi ay ku soo noqoto sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suuragalsan
Carrie Lam ayay ahayd madaxa Hong Kong. Bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. Hogaamiyaha Midowga Yurub waa hogaamiyaasha Midowga Yurub ayaa maanta markii saddexaad waxa ay kulan kale ku leeyihiin magaalada Brussels iyagoo rajaynaya in ay heshiis ka gaaraan cidda helaysa shaqooyinka ugu sarreeya ee ururkaasi Midowga reer Yurub marka la cusboonaysiiyo jagadaasi sanadkan dhamaadkiisa. Ilaa hadda way ku kala qaybsan yihiin cidda noqon doonta madaxa guddiga Yurub. Talyaaniga iyo dhowr wadan oo ah kuwa ka soo jeeda bariga Yurub ayaa waxay ka soo horjeedaan ninka ugu cadcad oo ah nin u dhashay wadanka Holland oo hanti wadaaga oo la yiraahdo Frans Timmermans. Booliiska wadanka Australia ayaa sheegay in ay xireen 3 nin oo looga shakiyay in ay qorsheynayaan weerar argagixiso oo ka dhaca magaalada Sydney. Booliiska federaalka ayaa waxay ku eedeeyeen in raggaasi ay taageeraan kooxda la baxday dowladda Islaamiga. saraakiisha ka hortaga argagixisada ee wadanka Australia ayaa sheegay in mid markaasi ay ku soo oogeen dacwad inuu diyaarinayay weerar argagixiso halka midka labaadna uu ku eedeeyay in uu xubin ka yahay ururka IS. booliiska Turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo intooda badan ay ka qabqabteen wadanka oo dhan waxaana ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga waa xarigii ugu dambeeyay ee dadka looga shakisan yahay in ku lug lahaayeen afgambigii dhicisoobay ee wadankaasi Turkiga ka dhacay 2016 kaasi oo dowladda Turkiga ay ku eedeysay wadaad ku nool wadanka Mareykanka inkastoo wadaadkaasi uu beeniyay wax luga inuu ku lahaa dadka dhaliila madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in arintani ay saameysay 10,000 oo qof kuwaasi oo madaxweyne Erdogan ay sheegeen in uu ku ugaarsanayo mucaaradka wadanka Turkiga. kumaan kun oo qof ayaa isku soo baxaya in ay daawadaan qorrax madoobaad ka dhacaya koonfurta America. Dalalka Argentina iyo Chile oo kaliya ayaa laga arki doonaa qorrax madoobaadkaasi. Dayaxa ayaa si toos ah waxa uu dhowr daqiiqo u hormaraya qorraxda isagoo iftiinka daboolaya. Ciddii aan maanta arag waa inay sugtaa ilaa marka laga gaarayo December 2020 markaasi oo uu mar kale dhici doono dayax madoobaadka ama qorrax madoobaadkaasi. sahan ay wada sameeyeen BBC da laanta af Carabiga iyo shabakada cilmi baarista ee Carabta ee la yiraahdo Barometer 2018 ilaa sanadkan aynu ku jirnay 2019 ayaa muujinaya in 3 meelood dadka ku nool gobolkaasi ay inta badan ka walwalsan yihiin waa bariga dhexe baaristu waxay sheegaysaa in Tunisia ay qabaan xanuunada dadka Tunisia maskaxda kuwa ugu daran ee dunida Carabta. gabayaa u dhashay wadanka Tunisia oo la yiraahdo Nidal Gharibi ayaa waxa uu istilay isagoo 32 jir ahaa. Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa naxdin ayaa ku jirta muuqaal naga naxo warbixintan ee ka foojignaada. xor ayaan ahay intaad jirtana waan kugu dul noolahay xitaa haddii uu idilayo jacaylkan kuu qabo xor ayaan ahay 27 bishii Maars 2018 ayuu abwaan Nidal Gharibi oo u dhashay Tunisia isdilay tirada dadka isdilaya ayaa aad u korortay madasha dhaqaalaha iyo xuquuqda bulshada ee Tunisia ayaa sheegaysa in 850 isku day dil uu dhacay 2016 shaqo inuu helo ayaa dhib ku ahayd arrimahana sidii uu u rabay umaysan socon marka waalidkiis ayuu u tagay si uu ula noolaado wuxuu isku dayay inuu wax uun sameeyo sababtoo ah wuxuu jeclaa halka uu ka soo jeedo wax walbana uu u sameyn lahaa wuxuu rabay inuu xaqiijiyo in dhalinyarada ay helaan nolol ka wanaagsan tiisa إذا هو الوسطاني في ولادي قدامه زوز ولاد وطفلة وبعده زوز ولاد وطفلة مرة في المكتب laba wiil iyo gabar ayaa Nidaal ka weyn laba wiil iyo gabarna way ka yariyeen dhaxdu ku jira waxaan xasuustaa inaan mar helay warqad yar oo gabay ku qoran yahay waxaan u qaatay in qof ay ka luntay isagaan siiyay si uu ugu celiyo cidii lahayd wuxuu yiri maya aabba aniga leh waxaan weydiiyay Allah adiga miyaa qoray gabayga uu dafiray wuxuuna yiri waxaan qoraa wixii ugu soo dhaco mar dambe ayaan xaqiiqsaday inuu gabyaa yahay way igu adag tahay in aan hadda aqriyo qoraalkiisa waan isku dayay balse waan samayn waayay qofkii ugu horeeyay ee ogaada ayaan ahaa marna ma iloobi karo sawirkaas markasta uu isaga igu soo dhaco sawirka ayaa i hor yimaada waa wiilkayga ma ahan cid aan iskala kulmay sahan ay sameeyeen laanta Carabiga ee BBC-da iyo Arab Barometer ayaa lagu ogaaday 10 qof ee Tunisiyaan ah in 4 ka mid ah ay mar walba dareemaan niyad jab. kacdoonkii kadib dhibaatooyinka dhalinyarada ayaa sii kordhay markii uu dhacay dadku way faraxsanaayeen waxa ay u haysteen in dunidu ay isbedelayso
tunisiya waa halka uu ka bilowday kacdoonkii carabta 2010 iyadoo markaa uu isdilay maxamed bouzuzi 2011 isdilka iyo iskudayga isdilka ayaa kordhayay waxa ayna sare u kaceen 2016 iyo 2017 أقرب مستوصف لنا يبعد أكثر. rugta caafimaadka ee halkan ugu dhow waxa ay jirtaa in ka badan 6 kiiloomitir waxaan rabaa inaan ku deeqo dhul lagu xusuusanayo wiilkayga in rugtan caafimaadka lagu xusuusanayo nidaal una dhahan Allah u naxariisto كيف يقولوا مستوصف نضال يقولوا الله يرحمه. muddo badan ayay igu qaadatay inaan aqbalo geeridiisa nasiib wanaag uma dhiman sida cid walba wax badan ayuu ka tagay fikradahana ma dhintaan qof aad wanaagsan ayuu ahaa way iga qaateen cid aan la garanayn ayaan noqday dad daacada oo ilmaynaya ayaa laabtaygu qabtay waa nidaal oo la jooga ilmaha uu adeerka u yahay dhowr bilood ka hor geeridiisa تعبت انت اليوم وزلت ما عملت شيء ارمي بوس على الخال كويس ايش ابوس ايش ابوس ايش ابوس صحيح نعم واتهاي برمر walba waxaad nagala socon kartaa bogayga BBC Somali Facebook falna wax raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxay noo soo socdo qaybta dambe ee barnaamijkan ku eegi doonaa kumaan kun oo qoys oo ka barakacay abaaro ayaa iminka ku nool xariiq qaxooti oo ku yaala magaalada Hargeysa warbixin iyo waraysi ayaanu idinkaga haynaa wax yar kadib ayaanu isku soo noqon doonaa wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawi caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn su'aalo ayaa la iska weydiinayaa sida qof u soo hoos galay diyaarad Kenya Airways oo ka timid Nairobi oo meydkii qofkaasi ugu dambeyn uu ku soo dhacay London dowladda Shiinaha ayaa ku boorisay mas'uuliyiinta Hong Kong in ay baaraan mas'uuliyadda dambiga kooxo mudaharaadayay oo waxyeeleeyay baarlamaanka Hong Kong qoysas badan ayaa xoolihii ay dhaqan jireen waxay ku waayeen abaarihii sanadihii ugu dambeeyay ka dhacay dalka magaalada Hargeysa oo kaliya waxa ka jira ilaa 6 xero oo ay ku nool yihiin kumaan kun oo qoys wariyaha BBC-da ee Hargeysa Sadiq Maxamed Burmad ayaa booqday mid ka mid ah kaamunkaasi dadka barakacayaasha oo warbixintan nooga soo diray ubadkan inay wax bartaan xitaa niyadda laguma hayo waalidka dhalay waxa kaliya ee ay ka fikiraan sidii ay ugu heli lahaayeen waxay cunaan waa qoysas aad u baahan bariyaha qaarse way ladnaayeen hooyadani abaartii ka hor waxay lahayd 500 oo neef oo ariya annagoo deer reer camirana oo ariyu 5 xero ku jiraan oo geelu xaraysan yahay oo maasha Allah aan ku jiro subag iyo caano ayaa la isugu kaayir rafacay marna laga dhiga dadkii sawaa nooga haray badidiisi mawdku wuxuu dilay in badan way ahayd laakiin intii badnayd way hadhay deebaciye garan waa baan ku jiraa way idinka arka markuu 2 bilood dhisnaadaba wixii ba cadceeda marinayso haddana markaas aanu dumarka magaalada oranayna calalana siiya aanu baca ku tollo waxaas aanu ku jiifsanaa oo furaash lahayn oo cawl lahayn oo baca ah ayaanu ku jiifsanaa waxaanu wada qaadnay nabaro iyo oofo haddii si uun bulshada ay ugu dhex shaqaysan lahaayeen magaalada way ka fog yihiin waa sida kaliya ee qoysaskan barakacayaasha ay noloshooda ay ku dabaraan gurista jeegan
ilaa 5 maalmood ayay ku qaadataa inay ururiyaan hal lowr oo jeeya laakiin waxa laga siistaa lacag aan $20 ba ka badnayn waana sida kaliya ay noloshooda ku maareyn karaan maadaama aynay haysan meel kale iyo si kale oo ay ku shaqaystaan waa hawl adag laakiin hooyadani way ku qasban tahay cid la gurtay cid la caawisa midtoona aanan haysan cid kalena aan meesha wax ugu sayna aanan ku lahayn waxay ugu kaliftay inaan iska gurto dhagaxayga inta bilaadan bari lahaa maalinta ilaahay iibigu keeno dallayga iibsada wuxuun bay goystaa kolay saabuuni goysto on baahida kaga baxo curadkaygiyo silsiladaysan meeligu xidhay meelan ku xidhay meel aan wax ku siistaan waayay ayay igu kaliftay inaan isagana ku dabaro anigii carruurtayda aan isku dabaray igu kaliftay hooy duruufaha qalafsan ee haysta ayaa sababay in qoysaskan intooda badan qof ama laba ka mid ah uu xiskiisa waayo halay waxaan ku dhinta hooyay u buuq sameeyay ilaa shalay ayuu 3 habeenimo inta ka qaaday halkan oo waliba ka furay ayaan buulkan geeyay kanaan galaayo kiibu qoriyay fujista labadii qori markaan leeysa baradu qod deetana markuu iga carruur xagga u carray la naasaha majaajidkaas rag ku soo qabtay marka buuqaas anigu dilo halkan xalay ugu dhuftay faad sidaasoo ay tahay halkan xasilooli kuma degana dadkii lahaa dhulkan ayaa raba inay dhistaan danyartana faray inay dhaqso uga guuraan iyagu se way ku dhagan yihiin waayo ma haystaan meel kale oo ay degaan kaalmo ayay dalbanayaan Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa haddaba si aanu wax badan uga ogaano dhibaatadan waxaa magaalada Hargeysa khadka si toos ugu jira gudoomiyaha hay'adda deegaanka ee Candlelight la yiraahdo Axmed Ibraahim Cawaale Axmed aad baad u mahadsan tahay kumanaan qoys bay saameysay laakiin xaddiga guud ee dhibaatadan abaaruhu ay ku hayaan gobolka ma ognahay mahadsanid Farxan runtii warbixintaas dareenka iyo xanuunka xambaarsan markaan dhageystay kullay waa fahmi karnaa barakacu dhibta uu leeyahay runtii haddaynu ka hadalno geeska ama si aan ugu dhaahdo ma garanaysaa gobolka Soomaalidu degto waxaa lagu qiyaasay laga soo bilaabo 2016 ilaa hadda tirada barakacayaashu inay gaarayaan 1,600,000 inay gaarayaan tirooyinka waa laga yaabaa in sababaha barakaca keenay inay way kala duwan yihiin colaaday noqon karaan abaaray noqon karaan markaas laakiinse arrinta ugu daran waxa weeye soo noqnoqoshada abaaraha oo baryahan dambe ama sanadadan dambe raadaynay ku yeelatay awgeed isbedelka cimiladu ay noqotay soo noqnoqoshadu ay badatay darnaantooduna aad iyo aad u badatay waan gartay marka Axmed inaad taabatay qaybo fara badan ba saameynta leedahay tiri waxa keenay ama sababay oo cimilada isbedelkeeda ay qayb ka tahay laakiin ma jirta qaab looga hortagi karo soo noqnoqoshadan aad sheegayso runtii waxa weeye waxyaabaha qaarkood wax waa ka qaban karnaa inagu haddaynu Soomaali nahay laakiin se arrintan isbedelka cimiladu waxa weeye waa xaalad caalami ah waa dhacdo caalami ah oo markaas inta ugu badanna waxa weeye cidda maartay sababta ama dhalisa waxa weeye waa dalalka warshadaysan qiiqa ay hawada ku sii deynayaan marka wax yar ayaynu ka qaban karnaa inagu sida awgeed waxa loo baahan yahay iskaashi caalami ah oo مثلا dalalka adduunka oo dhamay inay shirarbaad qabtaa kii Paris iyo kii Copenhagen shirarkaas oo laga hadlo sidii loo xakameyn lahaa isbedelka cimilada isla markaasna maadaama mas'uuliyadda ugu weyn ama ma garanaysaa dhibaatada ugu weyn ee deegaanka gaadhaysa ama maaragtay arlada gaadhaysa ay dalalkaas sababayaan inay ma garanaysaa ay caawiyaan dalalka soo koraya laakiin dalalka soo koraya ku dhowda xil baa saaran ama mas'uuliyad baa saaran marka waxa tiri mas'uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay wadamadan warshadaha leh hore u maray oo saameyntan qayb ka ah laakiin Soomaalida intooda badan waxa la oran jiray dagaal bay ku barakacaan marka mustaqbalka markaad eegto isbedelkan cimiladan uu sii socdo meesleeda waxa ugu weynay Soomaalidu ku barakici doonto waa isbedelkaas waa runtii waa taas weeye isbedelkaasi wuxuu keenaa waxyaabo la yiraahdo xaalada cimilo oo xag jira waa extreme weather conditions baa qalaadka lagu yiraahdaa macni waxa weeye ama waa abaaro xidhiidh ah oo ma garanaysaa muddadu aad u dheeraanayso ama marmarka qaarkood waxa weeye fatahaado iyo roobab aan haru loo orjino laakiin kuwa u dhowdo
abaaruhu ma keenaan barakaca waxaa keena sidaas leeg duufaanadii baa keenay saynu ognahay dhulka webiyada koonfurta Soomaaliya oo kale markaas xaaladahaas waa mid sii jiri doona oo sii adkaan doona oo darnaantoodu sii badnaan doonto marka ay sii korodho maaragtay saamaynta isbeddelka cimiladu ay sii korodhaba aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiyaha hay'adda deegaanka Candlelight Axmed Ibraahim Cawaale oo si toos ah nooga waramayay magaalada Hargeysa isagoo qadka ku jiray bal markana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno koobka qaramada Afrika ayaanu ku bilaabaynaa Senegal ayaa 3-0 waxa ay ku garaacday Kenya waxaana Senegal hadda ay is arkayaan Uganda oo 16 kooxood isku soo haray ku jirta natiijo taas la midana Algeria ayaa 3-0 waxa ay ku tuntay Tanzania Algeria qaybta C ayaa hadda ugu horeysa imikana ciyaaraha socda haddaanu eegno Benin ayaa la ciyaaraysa Cameroon halka Guinea Bissau-na ay Ghana is hayaan oo ciyaartooda wali ay socoto wali waa eber iyo hal ciyaaraha waxa kaloo jira iyaguna Angola iyo Mali kooxda Mauritania waxay la ciyaari doontaa Tunisia 8 habeenimo gabdhaha kubadda cagta ee England ayaa rajeynaya inay gaaraan markii ugu horeysay abid finalka koobka adduunka marka ay ciyaarta semi-finalka isku helaan kooxda Mareykanka gabdhaha England ayaa hadii ay guuleystaan waxay noqonayaan kooxdii ugu horeysay Ingiriiska ee timaada ciyaar adduun oo final ah ilaa iyo 1966 qiyaastii 250 milyan oo caruur oo dunida ku nool ayaan haysan wax iskuul oo ay wax ku bartaan hay'adda la yiraahdo Global Learning Express ayaa iminka waxay wadaa barnaamij ay ku horumarinayso ama software aalado lagu samaynayo tablets kuwaasi oo lagu caawinayo in da'yartu ay wax ku bartaan sanadkan waxa abaalmarinta ku guuleystay hay'adda aan macaash doonka ahayn ee la yiraahdo 1 billion BBC-da ayaa la kulantay gudoomiyahooda waxaana nooga waramaya Aadan Salamiin halkan ayay ahayd tuuladan ku taalla Malawi halkii 7 sano ka hor ay hay'adda 1 billion ay siisay qalabkii ugu horeeyay hay'adda samafalka ee Andrew oo la shaqaynaysa hay'adaha wada shaqaynta ay leeyihiin dalalka South Africa, Uganda, UK iyo halkan Tanzania ayaa waxa ay siisay qalab 4,000 oo caruurta aan gaarin da'da iskuulka kuwaas oo ku nool 150 tuulo 18 bilood kadib qaar badan ayaa waxa ay sameeyeen wax ka wanaagsan wixii laga filayay markii ay iskuulka aadeen taas oo ay natiijadu waxoogaa kala duwaneed wiilasha iyo gabdhaha waxa ay la tahay waa tijaabadii waxbarashada ee ugu weynayd ee ka dhacda meel dunida ka mid ah waxaynu aragnaa caruur ka samaynaya horumar ballaaran fahamka xarafka akhrinta ereyada xisaabta iyo aqoonsiga tirada tani waxa ayna tusinaysaa in ay xal u tahay dhibaatooyinka waxbarista ee caalamka natiijooyinkaasi wanaagsan ayaa ah in 30 daqiiqo ay noqoto xiisadda waxbarashada ee bulshada tuuladan gabar ayaan leeyahay wakhtiyadii la soo dhaafay xisaabta kuma aanay wanaagsanayn laakiin markii qalabkan uu yimid wax wanaagsan ayay iskuulka ka samaynaysaa iskuullada ku yaal Malawi waxa aad arkaysaa hal fasal oo ay dhigtaan tiro ka badan 150 caruur ah haddii aad ku cabirto tusaale ahaan shaqada aan halkan ka qabanay waxa aynu isticmaalaynaa tabletyo natiijooyinkaasi wanaagsan ayaa ah in 30 daqiiqo ay noqoto xiisadda waxbarashada ee bulshada tuuladan saacad gaari ah oo loo soconayo waqooyiga Lilongwe iyo awoodda software-ka oo ah mid cad xerada qaxootiga ee Desegla waxa ay hooy u tahay ugu badnaan 40,000 oo ka soo cararay dagaal iyo macluul halkan qalabka furan waxaa loo isticmaalaa in cashar lagu gudbiyo iyadoo la bixinayo dhaqaalaha saxda ah ayaa waxa muuqata tabletka loo isticmaalayo iskuulkan in si weyn loola qabsanayo xusuusna wararka ugu dambeeyay ee telefishinka BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali waliba shantii barnaamij ee ugu dambeeyay toddobaadkan ayaad ka daawan kartaa inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale habeen dambe dib u kulmayno dhammaantiinba aniga iyo asxaabta London waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan